qofka in naarta ilaahay ku xoreeyay waan jirkiisa naari taaban doonin waa bil deeqda qofka muslimka uu barto iyo waxbixinta waa bil qof kastoo muslimi almusaalaxa maca allah aw alrujuuc ila allah uu rabbigii u noqdo subxaanahu wa tacaala waa biluu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wassalaam sida dadka loo targhiibinayo loo jeclaysiinayo alle subxaanahu wa tacaala in albaabada jannada la furo albaabada naartana la xidho waxyaabaha dadka carqaladeeya ee jannada iska hortaaga ama naarta ku dirqiya ku tukhuntukhiyana oo abaalistiiyo shayaadiinta waaweyni ugu wenyiina iyagana in la xidho waa bil ruuxda qofka mu'minka ay daahir noqoto aasaartii iyo dunuubtii uu siday ama xambaarsanaaye sanadka dhanka soo dhacaysayna rabbi ka dejiyo idan waxay isweydiinta le markaasaynu ugu diyaargaroobaynaa maxaa laynaga rabaa inta ugu badan dadku qolana dee maba oga alla hanuuniye inta ogina waxaa laga yaabaa inuu diyaargarowgoodu noqdo guriga raashin fiican in la dhigo shaqada inuu iska yareeyo hurdada iyo cunnadaba inuu badsado oo wakhtiga cunnadu baynu bedellaa oo halkii maalintii wax laga cuni jiray un baynu u raraynayno maxay habeenkii cunno markaad eegto guriga cunnada la dhigo bisha kale iyo bisha ramadaan cunnada la dhigo marar badan waxaa badan maxay ramadaantii cunnada aynu qaadanno al asluna maaha cunno inaynu diyaargarowno waayo maanta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisan yihiinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro oo ah in caloosha la nasiyo oo cunnadu markay yaraato waxay dhahdaan beerkaagu wuxuu wakhti badan u helayaa sumuumtii jidhkaaga ku jirta inuu safayn karo waxaa cunnadu markay yaraato uu jidhku helayaa bay yidhaahdaan renewal old cellskoo dhamm inay dhintaan jidhka bay yidhaahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay wuu dilaa unugyo cusub baa dhasha markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaadaa walidaalik baa maanta miisaankaa dhinma kanbaa dhaca xanuunno badan bay ku daweeyaan ilaa ay xanuunno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 36 maalmood ama wax ku dhodhow la soomiyo igti'aabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo maanta dad badani waxay u soomaan inay jidh qurux badan yeeshaan dadka qaar waxay u soomaan in wasniga iyo miisaanka iska yareeyaan dadka qaarkood waxay u soomaan lilidiraab dowladda iyo wixii laga cabanayay in xabsiyada iyo meelahaas oo kale in cunnada laga soomo idiraab iyadoo ah laakiin waxaynu isweydiinaynaa qofka muslimka ahi maxaa asale uu sooma waxani waa tabac yani inaad caafimaad hesho ama inaad kan heshaa maaha asalkii soonka asalka soonku waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaah yidhi kuwa iimaanka laga helayow soom baa laydinku waajib yeelay sidii ummadihii idinka horreeyaba loogu waajib yeelay cibaadaadka qaarkood waa qadiim mundu qidami zamaan intii umamku cibaadaad la wada faray baa jira hayaakil alcibaada oo kayfiyaatihaa baa kala gedisnaatay مثلا صلاة وعبادة قديمة صومك وعبادة قديمة حجك وعبادة قديمة والغاية بقاب كلو قدن ياما لو سمينيني كلاقا قدسيه نبي كستا تشريعي لسوسي إنو كقدسيه لكن أصول العبادة أركان السلام قال إلهي طبضا وعبادات قديمة وقرآن كوينات المامية صومك إلهي وحينا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صوم بالله واجب يالي sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horreeyay maxaa laynoogu waajib yeelay ma ciqaaba oo inta layna ciqaabaaba dembiga laynagaga maydhaya miya maya ilaahay aayadka dambe wuxuu leeyahy yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla rabaa inuu noloshaba idin fudaydiyo soonkaba waxaa la idin faray
in noloshu idin fududaata baa la leeyahy culaysna rabbi idin lama rabo idan